South National Government Constituency Fund to Wajir South Technical and Vocational College. Thank you. waxaan idiin sheegayaa fursad aad iyo aad u qaali ah maanta haysataan markaad aragtaan gurigan waxaad ka fikirtaan dhalinyarta tirada badan ee guryaha hooyadood weli ku nool ee wax meherada aan haynin iskoolkii ay ka soo baxeen ka bacdi aan wax tababara la siinin shaqana aanan heli karaynin shaqo la'aanta ba'an ee ka jirta waddanka awgeed macnaheeda maaha qalin uun inaad ku shaqayso noloshu qalin keliya maaha waad ogtihiin kuwo badan oo hadda idinku dhex nool oo ka shaqaysto ama ku shaqaysto xirfado kala duwan ama baabuurta ha sameeyaan ama mataqaanaa wax allaale waxay ama guryaha ha dhisaan waxaanad moodaa xirfadaha iyo dadka xirfadaha u leh shaqooyinka inay nagu yar yihiin haddaan nahay dadka Soomaalida ee ku dhaqan guud ahaanba gobolka Waqooyi Bari waxaan u dhaqanahaynaa sida carabtii shidaalka lahayd ee dad soo dhoofsan jirtay si ay ugu shaqeeyaan kulliyadan waxay fursad u tahay dhalinyarta tirada badan ee markaad ila kulantaan aad leedihiin shaqo u raadi oo form ogi wax kale aanan baranin bara farsamada gacanta aniga waan u soo istaagay inta maanta aan halkan soo istaagayna waxa ka go'an in uu guuleysto macadkan idinkana waxaan idinka rabnaa inaad noo sheegtaan sida aad diyaar ugu tihiin in macadkani uu guuleysto oo kulliyadani ay noqoto mid daabagasho oo 30 sano 40 sano ka bacdi si tababarta dhalinyarteena guryaheeni waxaa dhisaya dad gobollo kale ka yimid baabuurtii waxaa hagaajinaya dad gobollo kale ka yimid haddaan u baahno in baybab la xirxiro oo plumbing waxa la yiraahdo la sameeyo dad gobollo kale ka yimid kaba soo baxo intaasoo dhan hadda waxaad keenteen in xoolihii aad xirfadda u lahaydeen iyo dhaxaltooyo aabe aad u lahaydeen iyo awoowe inay idin raacayaan dad shishe ka yimid Pokot raacaysa xoola anaa indhahayga saaray Wajir South ma been baan sheegayaa Pokot xoola raacaysa xitaa waan arag wax kale ka soo tag dadkuna waa dad saboola beerkooda beer uma heli war lacagtan idinka u baahan kharashkan idinka u baahan wiilashaas aad dhasheen farsamada gacanta bara xoolihiina ka daaya in ay mataqaanaa idin raacaan dadkaasi idinkaba wad raacan karaysaan ka daaya guryihiina inay ka shaqeeyaan dadka kale waxay idan ka qaadanayaan dakhli aad u ballaaran deegaanadiina meheradaha ka furan iyo ganacsiyada ka furanna wax saa u sii weyn kama iibsanayaan macnaheeda waxa waaye lacagihii halkan ku hari lahaa ee ganacsigiina ku meeraysan lahaa shishaa loo qaadaya oo gobollo kale soo dhisayaan dhaqaalaha waxa uu u liito waxa lacagta loo leeyahay waxa weeyaan shaqooyinkii hoose dad hayo oo lacagtii iyagu muruqooda ku dhalinaya dukaamadii geynaya maqaayadihii wax kaga cunaya meelihii dharka lagu gadayay wax ka gadanaya ma haysaan kulli waa leedan ka wada haystaa economigaasi aniga ka mas'uul ahaan waxaan samaynayaa haddii Ilaahay yiraahdo insha Allah taala inaan meeshii hostelka ahayd dhisno wixii kale loo baahnaa keenno kulliyadan ay noqoto kulliyad inta badan waxa ay u baahan tahay ama gabi ahaanba waxa ay u baahan tahay haysato oo laga helo laakiin waxay ku soo wareegaysaa community-ga in dadkii la tababari lahaa la keeno marka hostel la dhiso wax ka reebaya ma jiro cunuga Ibraahim Urey ka yimid inuu biyo madow u yimaado tababar farsamada gacanta ah taas waxay wax ka taraysaa
magaalada iyo dhaqaalaheeda iyo inay noqoto meel aqoon loo aqoonsado meel aqoon loo soo raadsado. waxaan u sheegayaa bulshada dowladda Kenya waxay noogu deeqaysaa 100 kombiyuutar oo kuliyadan la dhigayo oo aynan ahayn mid ay isticmaalayaan ardayda halkan wax ka barata kaliya bulshada magaaladan degan iyo agagaarkeeda ay u furnaan doonto haddii Ilaahay yiraahdo oo xitaa sarif looga iman kara dablay looga iman kara sabuuli looga iman kara cidii doonto oo dhalinyartu ku raadsan karaan shaqooyin computerka online oo internetka ay ka raadsanayaan. waxaan ognahay shaqooyin badan inay jiraan oo online lagu sameyn karayo maxkamadaha kamida oo dadku mataqaanaa ay sameynayaan tafsiir luqad intay ka tafsiiraan luqad kale u tafsiirayaan. waxaa jira shaqooyin badan oo international ah oo halkan lagu qaban karayo qofka isagoo gurigiisa joogo. sidaasi awgeed 100 kombiyuutar in laga faa'iideysto ayaan ugu baaqaynaa dowladda Kenya noogu baaqayso.